ما أنت إن تكدومته إن حفلتي يا ماموس كعيدا كقرنك إن تكدومته وقبن كري ويدو أيا كدم بيسي دمان مدحت هالكن شوكته وظهر يا مشرحة مدحوينها عبد الرحمن حاج عبد الله وانا دي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام قيمة بدن كدب أنا دمانتي نادية دين سلام يا وحن سيجارة انتي ugu mahadnaqaya uguna hambalyeynaya hablaha iyo inamada gaar ahaan haweenka aadka isugu dhibay ee ugu tabcay xafladan inay bilicdan u yeelaan sayna walaalkeen Cabdo Axmed Ayir u soo dhaweyno marka labaad Cabdo Axmed Ayir gudoomiye hore Burco iyo Boormaba taariikhdiisa laga warramay shakhsiyadaadii aad u qiimo badan leh تعبداً دلك سوقليي لبضنا وصومتي عاد بان سود وينيا وأنا نكفر حسنة هاي عاد بان نكفر حسنة هاي إنه ما أنت حس بجن ودني إن لبهوبه وحن لا سود وعبدو وندقل أنا تقريب كنا غنين وصاحب ذات شوقان وندقل إن شاء الله تعالى عاد كفر حدونته shaqada ka socota iyo hanaanka ka dhisan aad ku farxi doonto waa degal aan ka buuxsamin oo lagaaga baahan yahay waa degal aad qiimo ku leedahay haddaad ka timi degalkaan garanayo oo dadku markuu tago uun la teebo waanay qiimo ku lahayn degal aad qiimo ku leedahay joogistaada iyo maqnaanshahaaga iyo magacaaga dhammaantii aad qiimo ku leedahay weey soo dhawoobaan leh walaalkeen Cabdo aad si kaliya laaba ayaan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hambaliyo waanad mahadsan tahay insha Allah taala waynu wada guuleysanaynaa waxaynu hareeraha ka galeynaa musharaxa iyo musharax ku-xigeenka ilaa aynu gaadhsiino talada dalka oo ay insha Allah taala inagu hogaamiyaan isbedel khayr qaba ilaahay baynu ka baryaynaa ilaa inagu hogaamiyaan oo dalkan isbedelo oo aynu dhabayno oo gaadhno himiladii ummadan u lahayd inta badan ka dhul sugaysay inta badan sugayeen insha Allah taala waana la gaari doonaa waxaan ka gudbayaa waxaan jecelahay inaan iraahdo maadaama Cabdo maanta maalin badnin baa ka yimi oo anaga maalintan ka nimin la yaabanaaye maanta ma Cabdoona marayo halku ka yimi iyo ninka la yiraahdo Muuse madaxweyne Muuse ayaan jecelahay inaan kelmad iraahdo waxaan leeyahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo aragteen inay isku dayaan marka aynu wax sameeyno ayaa waynu isbedelay dubaba isbedelkii baa bilaabmay waxa lagu yaqaanaa xisbiyada mucaaradka ah daba socon jiray xukuumaddu reaction ka sameyn jiray xukuumaddu imika wayna daba socotaayo inagu bayna canjishaayo ina caydaayo gambadhada inagu soo fadhiisataayo waxaynu sameynay reaction ka sameeyaa marka waxa muuqanaysa in isbedelkii bilaabmay waa isbedelka hortiisii waa foori isbedelka dhacaya marka waxaan leeyahay madaxweyne Muuse haddii hogaamintii maamulkii aad ku guuldareysatay ha ku guuldareysanin inaad talada Soomaaliland si nabad qaba u wareejiso ha ku guuldareysanin inaad taariikhda ku gasho inay Soomaaliland ka dambeyn weydo ha ku guuldareysanin in dadku isweydiiyo bulshadu isweydiiso يعني إني ملا يسعدان قرن ويان ويسويديان ماذا سومالي له هأورن هلك هجارسيني ضد كرير سومالي له واحد وتمي معها واحد نسك شيء جيو إيجا مرخاتيكا واحد وتمي أديكوا كله هراي نوس عنينا هرا لص عنيا أديكوا كله وحنا ما أنت أي حقيق صدق إني دبوا السودان قادر رابخي مرين شاودي قادر رابخي مرين شاودي أفكينات كتير هذا هرا لص عنيا ضد كسائي عنده هذا كوار كان ندب لص عضو محاك وقول نذيرة أنا ويس كمله لكن سمحاك وقول نذيرة واحد تمي يدو لجوه سيو ولجو قلبنا يو وعد عد مشورتيا كصاب حداي واي بلشة فوقسي سي
لكن سنصيب درو maalintii ku xigtay baad ku tiri fartiina eedeysaan fartiina ayaa eedeysaan bal maad barwaaqo ugu baaqdid alla ilaahay way eedeen fartoodii ayay eedeen Soomaaliland way ku eeday adiga aan afkaaga ugu yeedhay adiga ayaa afkaaga ugu yeedhay way ka gudubtay dalkoo dhaqaale ahaan cirka maraya haddaan been sheegay dadka reer Soomaaliland ba ayaa maragiiga ah inta fadhiday inta maqan dalkoo dhaqaale ahaan koraya oo cirka maraya oo maalin walba wax ku kordhayaan oo dadku soo hiloobayo ayaa timi maantoo dhaqaale burburay oo dukaan meheradu xidhmayaan oo maalin walba ganacsatadu qaylinayso oo iminka ay gaadhay guryihii dadka noloshiisii ay taabatay ayaad maraysaa dadka noloshiisii ay taabatay baad maraysaa malaha si adigu de waxa laga yaabaa maxaa yaani la oran jiray wiil raaxa joogto ku dabaalataawbi maba oga waqtiga dhacay malaha duruufta ay ku jiraan ee aad mas'uulka ka tahay mala warba kama haysid laakiin si indhahaaguba way arki waxaana kaaga filan taariikhda inta isdaldashay ee duruufta joogtay isu daldashay ee naftoodii qaaliga ay iska qabtay intii Soomaaliland jirtay intii xukuumaddaadu jirtay baa badan saxaafadda adigu ka eegun anigu iska malihi bal adigu soo tira koob xurriyatul qowlkii iyo dimuqraadiyaddii ayaa iyadoo cirka maraysa aatimi maanta xadhig iyo cabsi iyo in dimuqraadiyaddii laga bariyo oo la yiraahdo doorasho qabo oo laga laayahay oo ay isugu yimaadeen birmageydadii oo ku yaadeen qabo waati waan qabanaya oo aad suldaadiintii ugu horeeyay hormuudka ahaa ee suldaan xasan kamid yahay maanta weerarka waxaad ugu haysaa maxaad yeeladay doorasho qabo de doorashadu waa dastuuri doorashadu waa sharci de waxa baan ogaay iyagoo sharciga ka xanaaqo waa bati aniga maalintii la ilaahay waa sharci maxaad u leedahayo waa sharci iyagoo ka xanaaqa dalkii nabadda ku faani jiray Soomaaliland ee aatimi ee dadku ugu majeeran jiray ayaa nabadii bari dhaweyd weydii ka arkay wixii dhacayay nabadda qofka ka hadla baa la yiraahdaa waa huwan waa cadow gudaha waa caynka war qiimii nabadu lahayd ayaa meesha ka baxay hadda mid walba u fiirso dimuqraadiyadda doorashadii shalay aad ku timi ayaad maanta la culowday nabadii qiimaha lahayd baad halka dhigtay waa labadii shay ee Soomaaliland ku guuleysatay ayaa labadiiba maanta ay gabaabsi marayaan ciidankii Soomaaliland horaa loo xusay ee Soomaaliyiinta ay degto ugu xooga badnaa ee la majeeran jiray ayaad isku xigsiisay shalay iyagoo wax tabaya reer Sool oo wax tabanaya oo heshiiskii khaatumo oo Cali Khaliif ku wareegay oo goob walba tagay oo meherada ka qayb galay oo cid walba warhooy wixii aynu isku darsanay warhooy Soomaaliland sidoo lahaa ayuu ku dhintay adiguna waxaad ugu jawaabtay awoowayaashin iyo aabayaashin baanu ka adkaan jiray ayaad ugu jawaabtay Allah kariim waxa ka dambeeyay maanta inaad ka dhuumato inaad xafladii iyo maamuuskii ciidanka qaranka inaad ka dhuumato oo qaban kari weydo ayaa ka dambeysay waxaan leeyahay adiga u yeedhay mid walba marxaati bay leedahay waxa garanaysaan bal marka aan la waafajinayn marka aan qofka la waafajinayn isaga carabkiisa ugu yeedhanaya isagoo le miyeedaan maqal reer laascaanood hanaga adkaadaan daaleelo way naga adkaadeen waad qiri weydo markii dambana ilaa nin baaba qiro yiraahda war naga adkaatay adabaan heshiino intuu isa soo taagay ayuu yiri hanaga adkaadaan reer laascaanood bal hadda u fiirso mid walba isaga u yeedhanaya de waxay oran jireen berigii hore reer xamarku ninka Ilaahay dilayo bugtiisa lama maqlo marka waar buuso haddii aad intaas oo dhan ku soo guur daraysatay de gaari raabaqay marin jaawadi
مياد إسك هدا استاب بروباغاندو يا اعتراف بان كينيا ده اعتراف والله بهاي مي اعتراف والله بهاي ما هوية ريان نقول والله بهاي وأنا أركي دتك قار له ما حي يقول شوابي وين حمر ورد أنا حسبي بان معارضة أنا وما يدمنين أن حمر وشوابنا ونو شوابنا هذه حكومة نوجا فقراي نوجو يا دم شرتو أو لودين هاي قرن أو قرن كسومال لان كجاه هذا نوجو يا دم شرتو يعني لك لجرن واي والله با وروحنا واي نو قيب سنيه وحنا نو ما قيب سنة دبلما السجا أنو الدولة دكما قبصناه دبلما السجا يعني خارجية ده وزير خارجي بين وضلانها وزير خارجي بعد دوني ده يدلل كوجوابه ما متكلم سماي سنة أنا وحقيقة أنا لانها حقيقة يقول حيد ما ينو وزير خارجي وحكتجي إنه دليله أيو يدميه لكن سد الدولة ده وما يدمنا ها حدا نوجا بهتوان الحوجينينا حكومة ده نوجا بهتوان الحوجينينا لكن سد مقام كيجي وانو هايناي حدا كاجي قبتي وأنا كان وعنا نيسو ده وحاب أركتين شعبك يوم مدحونوا لي وحاين نقبسناه يا وحاين نقبسناه يمكن إننا كنا وحاين نقول عنانا يعني أرنتي خارج جاي نودي الرأي أيها لا يمحي خارج وجواب واي وردوا نوجواب إن الدولة دي بدأ إسكديبة أنا جا وجوابي هالكذا ضعفني هذا الدولة دي بدأ إسكديبة هذا الدولة دي بدأ إسكديبة سومالي لان مركز لقى هذا اللي الدولة دي معارضك فوريان بوليس وينو كلا يلان كرا فوريان بوليس جارة وأنو سمايسن كرا oo maalinta nu guuleysano sidanu arinta kharijiga oo maamuli doono laakiin se maanta ma lihin siyaasadda qaranka wax ka duwan mana aanan odhan oo anagu yaani nalagama maqal wasiirka kharijigu iyo kharijiyadu nagama matasho hadii se haybadii dawladnimo iyo haybadii ciidan labadiiba aynu weyno maradu ka dhacday oo aad marada ka riday واد كشفتي داير اسكديبو حلك كدغو وارغنيمه يدوبا وارغنيمه وحلا اختراع محل هذا يعني ان لا اقبله دليشو وفضلي ان دخلت كاغا اعتراف خديه فضيله ان دخلت كاغا غرتا يبا وفضلي لكنسه دويدك يقانو shan baa la tiriyaa dhaqanka waxa la yiraahdaa nin raga iyo nin raga kalkaaliyo waa la soo wadaayo marka uu dambaysiyo waxa loogu dambaysiyaa rakrif haweenka raaliga ahaada waa tilmaanta dhaqanka Soomaaliga rakrif baa ninka ugu dambeeyay la yiraahdaa haddaad rakrif u noqoto garan kari weydo waayaan daro waxaan leeyahay haddaad ku guul daraystay iska dhiib waxbana tari mayso hadallada ee way arkaan reer Soomaaliland in Soomaaliland dib u socoto reer wadanina waxaan leeyahay waxa inoo balana ملا برنامج كي قروح بداية نسمي صنّي وحمانت عبد الرحمن يا إنك بين لا جدبون سيدا بينو سومالي لان سنتين تين سوق دينا هول بينو تعالى يسود ديارية وحكي إسك داية استبدل كي وو بلعب موون الصعوني وانا لقارية مال موون أكسن بانا دمبية غير وداني انتينا لقيا بين داشين هدالنا ويدو ذهي قوشة ولا قارية